rabaa inaan idiin sheego qodobo badan oo kamid ah waxa laga yaabaa inaad taqaanid kuwa kale waxa laga yaabaa inaadan aqoonin waxa laga yaabaa sidoo kale dhamaantood inaad wada taqaanid laakiin waxaan rajaynayaa qof inuu ka faa'iido hadalka badan waa inaan joojiyaa qodobada hore u kala I know so qodobka ugu koobaad waa iftiin ama lighting qodobkan waan wada garanaynaa laakiinse ama waa hilmaamnaa ama waxaan u maleynaa inaysan muhiim ahayn so hadda muuqaalkan aan sameeynayo waxaan isticmaalayaa dhowr iftiin waxaan isticmaalayaa iftiin guriga ah ama studio aan joogo waxaan isticmaalayaa iftiin kale oo halkan igaga shidan oo aan gaashaas marada saaray si aan diffuse kareeyo ama baan u baahiyo so iftiinka waa muhiim haddii aad sawir qaadaysid haddii aad muuqaal sameynaysid labadaba waa iftiinka waa muhiim waxa arintaas marka aan rabaa inaan ku daro waxa jiro marar aadan iftiin u baahnayn tusaale haddii aad doonaysid in aad mood ama ma garanaysaa jawi aad tilmaamto tusaale waxaad rabtaa inaad sheeko ku saabsan habeen inaad sheegtid so marka waxa laga yaabaa inaad iftiin u baahnayn sidoo kale lenseska qaar aperture-kooda uu badan yahay oo micnaha iftiin badan soo gelinayo lenseska sida kuwa aan ka soo hadlay haddii aadan videogaas arkin inta idin soo gelinaya fadlan muxuu ahaay waxaan ka hadlaynaa settingka kameradaada waxaana ka mid ah aperture-ka so lenses aperture weyn leh sida 1.2 1.4 1.8 2.2 haddii aad haysatid ayadana waxaa laga yaabaa iftiin badan inaadan u baahan sidoo kale waxaa jiro marar aadan u baahnayn iftiin oo aad kameradaada ka dhigi kartid mid iftiin badan uu soo galo qaabkaasna waxaa ku samayn kartaa shutter speedkaaga waxaad ka dhigaysaa mid aad u yar tusaale 8 seconds in uu sawir ka qaadmo amaba 30 seconds inuu sawir ka qaadmo so waxaan ka wada waxa waaye marka shutter speedkaaga aad dhaj marka aad siisid ma soo laabanayo sensorka kor intaas dhanna sawirka uu qaadmaya laakiin qodobkaas waxaa muhiim ah night photography baa inta badan la dhahaa haddii aad rabtid inaad samaysid waa inaad tripod haysatid qodobkaas asagoo oo faahfaahsan marbaad si fiican uga hadli doonaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan fikir uun ku siiyo mararka aadan lighting aadan u baahnayn laakiin mar walba iftiin fiican aad u baahan tahay sidoo kale iftiinka waxaa jira laba nooc iftiiyada mid artificial ah oo sida hadda kana isticmaalayo mid abuurtay ah iyo mid natural ama dabiici ah oo ah midka qoraxda haddii aadan haysanin marka midka muxuu ahaay artificialka ama la abuuro waxaad isticmaali kartaa marar badan midka dabiiciga tusaale waxaa jira asxaab badan oo ay dhahdo guri waan rabaa inaan wax ku duubo ma haysto iftiin fiican waxaan ku dhahaa okay dariishad ma leedahay ha dariishada subaxii markii qoraxda ay muxuu ahaa iftiin badan ku soo sideynayso waqtigaas la eego kadibna muuqaalkaaga duub waqtigaas haddii aad banaanka wax ku duubaysid ama aad joogtid wadan sida hadda meesha aniga aan joogo marar badan qabowga banaan ka jira laakiinse sida wadankeeni ama wadamo badan oo garanaysaa ay hawadooda ay fiican tahay marar badan dibadda aadi kartaa kadibna waxaad doonaysaa inaad duubtid dibadda ku soo duubi kartaa ama waad ku sawiri kartaa waxaan rabaa marka inaan ku daro bonus ama sir yar oo ku saabsan xilliyada ugu fiican oo sawirka la qaado arrintan waxa waaye arrin ay sawir qaadayaal badan isticmaalaan anigana wax badan baa isticmaalay waxaan inta badan la eegtaa clientiga ama dadka aan sawirayo inaan sawiro laba waqti subaxii qoraxda marka ay soo baxdo hal saac gudaheed iyo galabkii inta ayna qoraxda dhicin hal saac ka hor waxaa la dhahaa golden hour ama saacadda dahabiga saacadahan waqtiga la qaado sawirada aad bay u qurux badan yihiin waayo qoraxda waxay leedahay iftiin midab qurux badan leh mana aha mid qofka indhihiisa ku dhacayso waqtiga ugu xun oo banaanka sawir lagu qaado waa markii ay qoraxda korkaaga tahay so labada saacadood haddii aad qaadi karto sawiradaada adiga oo la eeganayo waqtigaasna aad bay u fiican tahay laakiin qodobka waa ku dheeraaday laakiin qodobka iftiinka wuxuu u baahan yahay videoya badan insha Allah si fiican baan uga hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo laakiinse hadda maanta intaas aan ugu gudbaynaa qodobka labaad oo wax la yiraahdo compositionka inta badan markii la dhaho composition sawirka compositionkiisa khaldan waxaas runtii dadku way ku wararaan laakiin waxaan rabaa inaan idin fududeeyo compositionka waa sida sawirkaaga uu habaysan yahay tusaale sawirkaaga waxaa laga yaabaa inay waxyaabo badan ku jiraan so waxaa la rabaa mar walba sawirkaaga inaad u diyaarisid qaab waxa aad subjectiga ama waxa aad rabtid qofka sawirkaaga fiirinaya inuu arko in aad u habaysid qaab qofka eegayo oo isla markiiba u garto waxa loo jeedo ama wax la sawirayo so waxaad sameynaysaa marka compositionka sawirkaaga waa iska fududahay in tusaale hadda in
muuqaalka muxuu ahaa sawirka aad sawiraysid in dhexda lagu aadiyo dhaja iska siisid waana marar badan waxyaabaha dadka ay sameeyaan okay waa daalay biyo inaan doonto noqon waxaa jira qaabab badan oo composition-kan aad u samayn kartid koo waxaa ka mid ah wax la yiraahdo rule of thumb calaamadahan aad arkaysid hadda mid ka mid ah waxaa ku aadinaysaa subject-gaaga laba waxaa jira wax la dhaho leading lines oo hadda tusaale sawirkan aan qaaday waxaan isticmaalay leading lines wax la yiraahdo isticmaalay si subject-ga aan rabo oo ah magaalada inaad u aragtid ay ishaada u raacdo kadibna aad u fiirisid waxa kale oo jira wax la yiraahdo in waxa aad doonaysid inuu muuqdo inaad weynaysid waxa kalena aad yaraysid so composition-ka markaan waa hagaajinaysaa waayo sharci waxaa jira ah subject-gaaga ama waxa aad doonaysid in la arko waa in uu ugu weyn yahay waxa ka muuqda meesha so haddii uu ugu yar yahay isla markiiba dadka ma arkayaan so qaabo badan insha Allah composition-ka waa badan waan ka hadli doonaa laakiin waxaan rabaa si guud in aad u ogaatid marka aad sawirkaaga qaadaysid iyo marka ay dhiirgareynaysidba aad runtii ka fikirtid qodobka saddexaad waa focus-ka waxa loo yaqaan amaba waxa sawirkaaga muuqdo amaba diiradda ay saaran tahay kaamirooyinka hadda waxa jira la dhahaa autofocus runtii oo ay magaranaysaa ay leeyihiin manually waad u samaysan kartaa laakiin badanaa hadda kaamirooyinka aad bay u horumareen autofocus waxay leeyihiin aad u qurux badan oo aad isku haleyn kartid marar badan so waxa aad doonaysid inaad sawirtid haddii uusan focus-ka saarnayn sawirkaaga ma la fahmayo waxa subject-ga aad sawiraysid so mar walba waxa isku daydaa haddii aad qof sawiraysid qofkaas in aad ishiisa ku aadisid focus-ka waayo isha indhaha waa waxa ugu muhiimsan markii aad qofka sawiraysid isha markaa ku aadisid wajigiisa focus-ka noqonayo jirkiisa kala focus noqonayo waxa ka dambeeyana marar badan out focus bay noqonayo waxa jira marar qaar la break gareeyo amaba ay jabiyaan dadka magaranaysaa artistiyaasha ama photographer-ka ah sharciyadan si ay style amaba qaab u achieve gareeyaan ay ayaga doonayaan qodobka afraad waa background-kaaga muhiim buu yahay background waxaan ka wadaa gadaashaada marar badan marka aad sawir qaadaysid waxa laga yaabaa waxyaabo badan inay gadaasha qofka taagan yihiin so waxa laga yaabaa in ay qashin u yaalo waxa laga yaabaa caagada inay ku daadsan waxa laga yaabaa inay dad badan socdaan mar walba isku day waxa aad sawiraysid in background-kiisa uu nadiif yahay waxa jira marka laba qaab oo aad arinta ku sameyn kartid koow la raadsameel aanan lahayn waxyaabo badan oo gadaashiisa qofka ka soo socdo amaba muxuu ahaayay alaab badan ay yeelan haddii aad waxaas ka banayn kartid amaba aad ka dhaqaajin kartid waa okay haddii aadan samayn karin waxaad la raacdaa qofka amaba aad ku soo sawirtaa meel xoogaa aysan waxyaabo badan ama distraction badan ama waxyaabo badan ay gadaashiisa inay ka socdeen haddii kalena waxaad samayn kartaa in gadaasha qofka aad blur ka dhigtid amaba aad baabi'isid qaabka aad u samayn kartidna waxa waaye in lenseska aad dooratid uu yahay mid abajagiisa uu weyn yahay sidoo kale waxaad samayn kartaa marka aad edit gareynaysid muuqaalka in aad Photoshop geysid kadibna aad waxyaabo qaar ay ka bixisid laakiin marka ugu horeysa isku day in aadan magaranaysaa waxyaabo badan ay la soconin si hadhow shaqada ay kugu yaraato qodobka shanaad waa qodob aad muhiim u ah waa editing-ka amaba software-ka aad ku hagaajinaysid sawirkaaga sawirka markii la soo qaado marar badan waxa laga yaabaa sawirada qaar inay fiican yihiin oo aad u baahnaan editing laakiin mar walba aniga iyo dad badan way edit gareeyaan sawiradooda sawirada arkaysaan oo quruxda badan oo habaysan waxay soo mareen process in aad hagaajisid magaranaysaa midabkooda in aad exposure-ka aad ka saxdid in magaranaysaa aad meelaha qaar aad tutus in composition-kooda aad hagaajisid in magaranaysaa waxyaabaha qaar aad ku dardartid meelaha qaar bahalka iftiinka in haddii vanyaagin uu leeyahay amaba distortion ama waxyaabo qaar ka halaysan aad ku saxdid magaranaysaa software-ka software waxaa jira dad badan ay isticmaalaan sawirka marka hore oo dadka ay qaadeen wuu qurux badan yahay marka aad fiirisid composition-kiisa qaabka loo qaaday wax walba laakiin qofku waxa laga yaabaa inuu geeyo software kale software-kana uunan ahayn software fiican oo runtii tayo u yeelaya sawiradaada ee mid dilaayo uu yahay so xaggaasuu qofkii geenayaa waana fahmi karaa marar badan anigaba waa samayn jiray midaba iyo waxba ku dardaaraya exposure-ku ku dardaraya kadibna sawirkiiyo muxuu ahaayay asaga dhanba nooc kale oo midabkiisa iyo wixiisa dhanba ay dilan yihiin buu qofkii la soo laabanaya so waxaan rabaa inaan idin sheego software fiican oo aniga isticmaalo professional photographers ay isticmaalaan oo la yiraahdo Lightroom waa haddii aad doonaysid in aad magaranaysaa sawiradaada aad tayo u yeeshid si fiican aad u edit gareysid waa inaad Lightroom isticmaashaa
waa ogahay dadka qaar waxay isticmaalaan Photoshop laakiin Photoshop waa isticmaalaa mararka qaar laakiin waxaan isticmaalaa waxyaabo gooni ah Photoshopka inaad wax midab aad inaad gadaal ka bedeshid sawirka in ma garanaysaa waxyaabaha qaar aad kaga saartid in aad ma garanaysaa waxyaabaha qaar ku achieve gareysid ma ogeey laakiin editing hadii ay noqoto midabo hadii ay noqoto compositionka hadii ay noqoto inta badan waxa loo isticmaalaa Lightroom waana waxa bahalka kaliya ugu fiican oo ilaa hadda la isticmaalo soo asxaabada ma soo weydiisay softwarekaas isticmaalaa waa isticmaali kartaa waa Adobe Suite buu ka mid yahay hadii ay heli kartid isticmaal qodobka lixaad oo ku xiga qodobka ugu dambeeyo waa sharing ama sawirkii waad qaaday waa edit gareysay waqti baa ka galay waxaad doonaysaa marka inaad asxaabtaada la wadaagtid ama aad si share gareysid soo waxaan rabaa inaad ogaatid qaabka sawirkaaga aad u share gareynaysid ha noqdo qaab aad ka fikirtay sawirkan qaadadiisa waqti baa gelisay habeentiisa waqti baa gelisay quality-giisa marka inaad si fudud aad u muxuu ahaayay u lumisid waa wax badan oo marar badan dhaco soo sawirka asxaab badan waxa argay sawirran soo sheegay Facebook-an soo geliya kadibna Facebook-ga ka save gareysanayaan kuwa qaar meel kale geeyaan iftiin iyo waxbay ku dardarsadaan kadibna way soo sheegayaan sawirka marka arkan waxaan leeyahay sawirkan ma niga qaado marka qaar waxa dhahay loogada ayaa kaaga fujiya hadii aad muuqaalkan daawanaysid oo waxa aad sameysay adiga kuma jeedo just waxa rabaa inaad ogaato Instagram hadaa aad geynaysid hadii aad Facebook aad geynaysid sawirka quality-giisa wuu lumayaa waayo appskan waxa loo sameeyay in ay yareeyaan resizing bay ku sameeyaan marar badan ma garanaysaa resolution-ka sawirka kadibna sawirkii oo tayadiisa xoogaa yara aynan sidii ahayn baa soo galay Facebook qofka markii uu sii dejisto uu save gareysto tayadii way xumaanaysaa hadii uu dadka qaar apps kale ay geeyaan oo ay wax ku sii sameeyaan uu si halaabay kadibna sawirkii waxa qofkii uu soo sheegareynaya oo nooc kale badanaa waxaan jeclaa inaan isticmaalo tusaale hadii aan sawirka Instagram u wado waxaan isticmaalaa Google Drive ama Dropbox xagaasaan ku geliyaa kadibna muxuu ahaayay intaan soo download gareeyo oo xaga ka soo download gareeyo kadib baan Facebook ama ma garanaysaa Instagram ku sheegareeyaa si quality-giisa aan u ilaaliyo qodobka ugu dambeeyo maantay oo runtii ugu muhiimsan waxa weeye in aad mar walba learn and practice waxa kali oo ka dhigayo qof sawirada ku fiican ama wax walba ku fiican waa inaad koob wax baranaysid oo mar walba aad ku jirtid inaad aqoontaada kordhisid labo aadna wixii samaysid practice na samaysid dibadda u baxday aad sawirro qaadid ay did kareysid aad ku soo celisid kuma baran kartid waxyaabo badan oo cashar badan dhageysatid laakiin waa qayb kamid ah soo cashar ka dhageyso muxuu ahaayay baro online courses baa jira aad qaadan kartid ma garanaysaa schools baad ma garanaysaa u gali kartaa inkastoo aan aniga suggest gareynin hadda qof inuu ma garanaysaa waxyaabo badan oo internetka ku jiro hadda saacadan 4 sano 5 sano ku soo lumiyo soo mar walba baro waxaan rabaa runtii ilaa hadda hadii aad muuqaalkan dheer daawanaysid aan ku mahadceliyo waayo waxa tahay qof xiiseynaya inuu wax barto waxa laga yaabaa xitaa inaadan photography wax waxba ka gelin oo iska daawanaysid soo laba goor buu ku mahadceliyay soo ma runtii wax walba kaliya photography ma aha sawir qaadida ma aha muuqaal sameynta ma aha wax walba oo aad doonaysid inaad kamera dhalisid waa inaad barataa wuxuu ahaay habeen iyo maalin kadibna aad tijaabisaa wixii aad banaanka aadaa samaysaa ku celisaa khalad aad samaysaa ka barataa saas ayaadna ma garanaysaa ay ku gaaraysaa guul soo asxaabtu waa mahadsantiin aad baa u mahadsantiin waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo maxaad doonaysaa next inaan ka hadalno ama mawduuca arabti inaan ka hadalno hadduu ilaahay yiraahdo hoos noogu soo qor mid baan qaadanayna insha Allah muuqaal noo ka soo sameynayna aad baa u mahadsantiin bye bye videogan waa igu dheeraan I think waa markii labaad videogan aan duubayo but I hope inaad wax ka faa'iidaysaan asxaabta so bye bye ku dhac